shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shirka wada tashiga ee dhawaan ka dhacayo teendada Afasiyooni kaasi oo la doonayo lagu dhameystiro geedi socodka nabadda iyo sidii loo aadi lahaa doorashooyin loo wada dhan yahay ee ka dhaca dalka waxayna tilmaameen in shirkan ay ka rajeynayaan inay ka soo baxaan wax ay ku farxaan bulshada isla markaana u horseedi kara dalka horumar nabad iyo xasilooni siyaasadeed qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka dalbaday siyaasiyiinta mucaaradka dawlad goboleedyada dalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay la yimaadaan shirka isu tanaasul aynu u turaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaalidu uu qalbigooda burcad isu mariyo oo ay u daayaan dadkan hadda jooga ilaa iyo one man one vote inaga gaarsiinayaan marka waxa lagu andacoonayna waxa weeye dimuqraadiyad u baahanaa dimuqraadiyada sideedaba waa labo nooc weeye nooc kale ma jiro mid waa substantive midna waxa weeye waa formal marka wadamadan Afrikaanka gidigeen waxa iska haysanaa iyo xataa Europe badankooda waxa la haystaa wax formal ah magacayga waxa la yiraahdaa Rajab Ismaaciil Saalax walaalayaal saawada ogtiin baritoole halka ka waxa ka dhacaya teendada waxa ka dhacaya shir mucaarad iyo muxaafid bal isku imanayo waa shir ummadda Soomaaliyeed waa shir u dana hooyada Soomaaliyeed dhalaanka Soomaaliyeed mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed waa shir u dana nabadda ummadda Soomaaliyeed waa shir u dana cid walba waa shir loo baahan yahay wax kool ka soo baxaan waa shir loo baahan yahay in tanaasul badan yimaado waa inay mucaaradku tanaasulaan muxaafidkana tanaasulaan meel dhaxal qaar kamid ah dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka hadlay ra'yigooda ku aadan shirka magacaygu waa Mahad Cabdi Maxamed waxa kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho hadii aan ka aragtay dibto shirkan bari lagu balansan yahay oo Muqdisho ka dhici doono 20 bishan waxaan rajeynayaa inuu noqdo mid isu soo dhaweeyo Soomaali oo muddooyinkii ugu dambeeyay dalku wuxuu ku jiray xaalado oo isqabqabsi ah oo dhanka doorashooyinka ah بريتول وحرجينينا إن دلكو وجهيستو جهة عصب صدح قال إسفهن يسوع دواشو إن أمد الصوماليات أي يقليلان يلا دورشو لأن لو هشيس لو ذي هاي مقعي جوا علموي عبد الله حسن وقتي على جوجنا كله المجال مقدشو كان مد على نيرة كتمت قربها وحرجيننا أنا رجع كهذلنا وساعد علينا كل خير كرجيننا إن شاء الله ملاحظة iyo maamulada iyo qaybaha siyaasadda dhamaan waxa ugu baaqayna insha Allah inay shirkan uu noqdo shir ma aragtay go'aan fiican oo shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ay ku farxaan inuu noqdo magacay waa Nuur Cabdiib hadii aan fikirkayga iyo aragtidayda aan ka dhiibto shirka berita dhacaya oo ku saabsan doorashada shirka berita dhacaya waxa rajaynayaa inuu ku soo dhamaado is-afgarad iyo heshiis oo dalku u jihaysto doorasho dad magacaygu waa Iftinuur Barow insha Allah horta mar walba waxaan jecelnahay anaga nabadda ilaahay waxa ka baryaynaa inuu ka soo baxo yaani kii dalka iyo dadka ku dagi lahaa lagu nasalaha dawladana ay hore u ku cilheed inta ka rajaynaa insha Allah u baaqay anaga inkastoo shacabnahay oo dadka dhimanay aan nahay mar walba waxaan leenahay nabad uun bas magacaygu waa Khadiija Cali Maxamed shirka waxaan ka codsanaynaa inay soo dejiyaan ra'iisul wasaaraha arrimaha doorashooyinka maadaama doorashooyinka ra'iisul wasaaraha uu dhaay doorasho wal qabanaya waxaan rabnaa inay soo dejiyaan doorashada ay dhacdo weynkan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada dalka iyo siyaasiyiinta iyo mucaaradkuba waxa ay wadeen dadaalo ku aadan sidii looga wada shaqeyn lahaa isfaham iyo in loo dareero doorasho loo wada dhan yahay موسى عثمان أبطو تلفزيون كغران كسوماليات مقدشو